salaamullaahi calaykum idilkiinba meel walbood joogtaan subax wanaagsan halkan waa Gold TV waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan cusub ha hilmaamin subscribe like iyo share mar kale subax wanaagsan akhyaaraya wararka suuqa saaka iyo Arbacada taariikhduna ay tahay 23 Oktoobar 2019 waxa ugu waaweyn daafaca kooxda Barcelona Samuel Umtiti ayaa si weyn ugu sii dhawaanaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich marka la gaaro suuqyaraha Janaayo waxa qoraysa Don Balon Mandzukic ayaa doonaya hadii uu ku biirayo kooxda Old Trafford ee Manchester United inuu qaato lacag gaaraysa 300 oo kun toddobaadkii waxa qoraysa San kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku soo biirtay bacsiga loogu jiro saxiixa xidiga Jordan Sancho ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund xilli markaas xidigan lagu baadigoobayo wax ka badan 120 milyan oo euro waxa qorayso Sunday Mail kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iska diiday dalab 30 milyan ka oo kooxda Arsenal ay ku xaqiijin lahayd saxiixa xidiga amaahda ugu jooga ee Dani Ceballos kaasoo haatan ku sugan kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates waxaana qorayso El Desmasqueo naadiga Sporting Club ayaa u dhaqaaqaysa saxiixa xidiga aan booska ka haysanin naadiga Paris Saint-Germain ee Jesse ka oo ay doonayso in heshiis amaaha ay ku qaadato marka la gaaro suuqa Janaayo waxayna bixinaysaa lacag gaaraysa 2 milyan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa qiimeynaysa tayada xidiga kooxda Ibrahimovic ninka lagu magacaabo Christian Eriksen si ay ugu soo dhaqaajiso gudaha Jarmalka waxaana qorayso Mundo Deportivo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa diyaar u ah inay dib isaga iibiso ciyaaryahan Ibrahimovic Diaz kao isagu sanadkan gudihiisa laga soo qaatay kooxda Manchester City AS ayaa qoraysa golahayaha Ajax Amsterdam Keba Onana ayaa doonaya inuu ka faa'iideysto hadii uu helo Janis uu mar kale dib ugu laabanayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona isagoona markan u dhaqaaqaya naadigaasi xagaaga soo socota sida markaas ay warinayso Sunday Mail xidigii hore ee qadka dhexe uga ciyaari jiray naadiga Tottenham Christian Brown ayaa sheegay in ciyaaryahanka haatan Tottenham baxsadka ka ah Christian Eriksen uu marnaba ku biiri doonin kooxda Manchester United sabab la xiriira in ciyaaryahankan uu doonayo ku guuleysiga koobab waaweyn kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa isku dayeysay in ay markani soo dhaqaajiso ciyaaryahan Adrian Rabiot kaasoo isagu kursiga keedka ka galay kooxda Juventus sida ay qorayso reports Aurelio Andreazzoli ayaa laga raacdiyay shaqada kooxda Genoa isagoona markaas macalinkan lagu bedelayo xidigii hore ee kooxaha Paris Saint-Germain Inter Milan iyo Barcelona Thiago Motta kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa doonaysa in xidigeeda weerarka uga ciyaaray ee Toby Abraham ay qandaraas ka saxiixato iyadoona markan siinaysa mushaaraad gaaraya 100,000 isbuucii waxaana qoraysa Sky Italy xidiga kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Lazaro ayaa sheegay inuu doonayo inuu iska sii joogo kooxda Inter Milan xilli xidigan uu sanad ciyaareedkan ka soo dhaqaaqay naadiga Hertha Berlin waxaana qoraysa Tutto Sport naadiga kubadda cagta ee AC Milan ayaa markan indhayaal u dirtay ciyaaryahan Morelos oo isagu ku sugan naadiga Everton xilli ay doonayso in xidigan mar kale ay dib ugu soo celiso gudaha Talyaaniga gaar ahaan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga waxa qorayso Calcio Mercato ciyaaryahan Isco Alcaron ayaa ka fiirsanayo inuu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan isagoona doonayo inuu u dhaqaaqo gudaha dalka Talyaaniga waxaana looga gacan haatinayaa kooxda kubadda cagta ee Napoli sida ay ku soo waramayso Calcio Mercato kuwaasi waxa ay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaaraha kubadda cagta maanta oo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 23 Oktoobar 2019